wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo agaasimaha guud ee Baanka Somaliland oo howlo shaqo u joogay waddanka Djibouti toddobaadadanba ayaa soo booqday safaaradda Somaliland ee ku taala waddanka Djibouti waxaana ugu horreyntii safaaradda ku soo dhaweeyay Ambassador Cabdifataax Siciid Axmed safiirka Somaliland u fadhiya waddanka Djibouti. Wafdiga ayaa markii ay soo booqdeen safaaradda Somaliland waxay soo indhaindhayeen qaybaha ay ka kooban tahay safaaradda Somaliland ee ku taala waddanka Djibouti. wafdigan uu hogaaminayo agaasimaha guud ee Baanka Somaliland ee howlaha shaqo u joogay waddanka Djibouti ayaa uga mahad celiyay safiirka Somaliland soo dhaweynta ballaaran sida uu ugu soo dhaweeyay safaaradda Somaliland ee ku taala waddanka Djibouti. Geesta kale waxaa isaguna safaaradda Somaliland ee waddanka Djibouti soo booqday abwaanka weyn ee Daah Gaas oo ah abwaan weyn oo reer Somaliland sidoo kale waxaa isna wehelinayay muusikaystaha weyn ee Maxamed Alto oo tuma muusiga loo yaqaano saxophone-ka oo ka tirsan kooxaha Djibouti. Maxamed Alto iyo Daah Gaas ayaa ugu horreyntii u mahad celiyay safiirka Somaliland u fadhiya waddanka Djibouti Ambassador Cabdifataax Siciid Axmed waxayna halkaasi ka soo jeediyeen hadal kooban oo ku saabsan soo dhaweyntaasi loogu fidiyay safaaradda Somaliland ee ku taala waddanka Djibouti. Bismillahir Rahmanir Rahim. Waxaan ku soo dhaweynaa maanta abwaan Daah Gaas oo ka yimid Jamhuuriyadda Somaliland oo yimid waddankiisii labaad. Waxaana ku soo dhawo iyo dhaxamiiste musician abwaan Alta iyagu isna reer Djibouti reer Somaliland qoladii soo dhaweynaysa safiirka soo dhaweynayna abwaan Daah Cabdi Gaas markaa ku soo dhawaada maasha Allah waddankii labaad baa abwaan maxaa hayday waxaa loo xidhan diyaar safaarad ahaan kula qabanayna diyaar baan u nahay qalloon waddankaaga labaad baa joogtaa annaguna runtii diyaar baan u nahay hadday siyaasiyiin noqoto hadday abwaana noqoto hadday noqoto moogtahay dhalinyarada haweenka safaaradooda cid walba soo dhaweeyo marka aadna waxaan soo dhawo mar labaad iyo saddexaad safiir dadkiisa garanaya shaqadu haya garanaya siyaasi abwaan fanaan og inuu ku wada yahay safiir na soo doonay markuu ogaaday magaalada inaanu nimin annaguna aan isku soo halganaynay shaqadiisii ka soo baxay aad iyo aad baanu kugu kalsoonayna wala kaga mahad celinayna shaqada ku hayso wax kastoo dhiirigelin waa ka qaalisantay wax la siiyo kasta aad baan kugu ducaynaa ilaa shaqada haysana ku astro wajibkaagana wad galaysaa shaqada. Maxamed Jaamac Waale, warbaahinta qaranka Somaliland, Djibouti.